Aamina Sheekh Axmed Yuusuf oo ah hooyo Soomaaliyeed haysatana 10 caruur ah oo afar ka mid ah yihiin naafo ayaa ummadda Soomaaliyeed weydiisatay in la caawiyo afarta caruurta naafada oo aan ku booqanay hoyga ay ka degan yihiin magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa laga dareemayay duruufta adag ee dhanka nolosha oo ay xilligan ku jiraan iyagoon aan haysan wax u gargaara maadaama aabihii reerka uu geeriyooday maalmo ka hor. Aamina Sheekh Axmed ayaa waxay awoodi weyday inay ka warbixiso xaaladda ay ku sugan yihiin iyada iyo qoyskeeda, balse Kaafiya Xasan Nuur oo ka mid ah dadka deriska la ah Aamina Sheekh Axmed ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda ay ku sugan yihiin reerkan, waxayna sheegtay in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata loona baahan yahay in gacan weyn laga geysto sidii dadkan wax loogu qaban lahaa. afar caruur waa curyaan, waa 3 wiil iyo saa u jeedaan gabadhan yar way sii kala liitaan. ilmaha wiilka afka waxba loo qabanaya, waxba la siinaya, ilmo wax soo qabsanaya maaha. ilmahan hooyada waatan waa maamadii dhashay marxuumka dhintay Cabdicasiis dhashay. Cabdicasiis keligii bay dhashay maamadan xanuunsan, asaga baa wiil u ahaa oo ay keligiisay dhashay, ilmo kale ma dhalin. waa maanta wiilkiina waa weyday, waa dhintay, ayaduna waa xanuunsan tahay oo waa qof xoga madaxa indhahana maamada waxba kama aragto, inta badan waxba adigu humaag waxba ma arkayso maamadu. Cabdicasiis marka hadda ka hor baa waxa ku dhacay walba xabad baa ku dhacday. hadda ka hor doctor Dhaga Cadda la geeyay, doctor Dhaga Cadda operation ku sameeyay, wuu socday, wuu iska roonaa. Cabdicasiis ilmihiisaan harqaan asagoo dhaawaca oo dhacaan ku soconayo buu ilmihiisa u shaqaysan jiray. Cabdicasiis nolol maalmeedkooda Cabdicasiis wuxuu ka soo saari jiray harqaanka afarta caruur oo curyaanka iyo hooyada xanuunsan iyo ilmaha kaleba. wax kastaba ha qabeen aabahood waa u noolaa dib iyo dheefba. wiilka weynna waa xiran yahay oo wiil weyn marba adigu wuxuun shirow galay waan xiran yahay, xabsigu jiraa, sidii Ilaahay ka dhigay noqonaysaa. aabahood caruurtan maalin dhaweyta waxaa ku dhacay xanuun magaalada ku dhacay oo kududka la sheegay waa ku dhacay. Cabdicasiis adigu matagi aadi badnayd baa waxaa furatay meeshii. waxaa loo sheegay doctor Dhaga Cadda, waa loo yeeray. Cabdicasiis operation baa lagu sameeyay. khayr Allah siiyo, doctorku waa dadaalay, 2 operation waa mariyay. kulli nafsin daaqatu musaacadii Cabdicasiis soo dhamaatay. Cabdicasiis waa dhintay, waa xijaabtay. dhib badan baa ha ka mareen gabadha hadda waatan waa Aamino, dhib badan ha ka mareen hawl badan ha ka soo mardo sakaraadkiisii ha dul istaagnaato. Cabdicasiis Allah u naxariista afar bari buu xijaaban yahay. waxaa soo haray ilmihii afartii caruuraha curyaana, maamadii xanuunsan, faamilkii kale ehel magaalada kuma leh caruurtan aan muslimiintaas ahayn. ma fahanteen marka waxa weeye walaalayaalow, islaamka waxaa laga codsanayaa meel walba ay joogaan ilmahan aabahoodba wax kastaba ku qamaan, wax walba ha u keeneen nolol maalmeedkooda maalinta 40,000 iyo 50,000 oo shilin Soomaaliga uu ka soo saaray harqaanka baa nolol maalmeed u ahaa. ilmihiisa cidna Cabdicasiis kuma haleen jirin, asaga hoosta gashan jiray. haddaba walaal ka qayb qaado caawinta qoyskan danyarta ah. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri u naxariista kiina dhulka ku sugan samada laydinkaga naxariisane. wixii aad awoodo ugu dir taleefanada shaashada kaaga muuqda.